shirka jaraa'id loo qabtay in laga hadlo falkii xalay dhacay oo warqadda wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxday oo maamul u sameynta degmada Hobyo ah waxa nasiib darro ah in wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo midda arrimaha gudaha Galmudug ay sameeyeen habraacaas muxuu yahay in maamulka deegaanka lagu dhiso maamul deegaan ahaan waxa nasiib darro in la yiraahdo qabiil in wax lagu dhiso haddana la iskala tashan sharciga u degsan oo wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Galmudug warqaday akhriyeen oo guddigu wadeen waxa ku qornayd in maamulka lagu dhisayo deegaan waxa nasiib darro in dhabarka loo rogay inaan waxba lagala tashan odayaasha waxa habraac kamid ah odayaasha dhaqanka in wax lagala tashado in maamulka jira meesha jooga lagala tashado in wax la isku raacsan yahay oo lagu midaysan yahay ay meesha ka soo baxaan waxa nasiib darro ah in warqad aan waxba laga ogeyn iyo cid lagala tashaday ay si jirin kuna salaysneen habraac in la dhisay la soo saaray xalay waxaan leenahay danaay odayaasha beesha iyo guddiga maamulka meesha isku yimid beesha saacad in cid lagala tashado warqadaasi jirin aanan raacsanayn raalina ka ahayn waxna ka ogeyn wixii dhibaato ah oo raggii loo soo diray meeshaas sameeyeen ay ka abuureen fidno inaysan ugu kordhin waxa madaxweynaha u soo jeedinayna waa fidno wadayaal raggii hawsha weyn in wax laga qabto dambiilayaal baa aragnaa maanta isku dir iyo dhibaato iyo wareer ayay soo ka dhigeen arin waa xasarad baa kacday waxaasna waa ka hortagnay waana dejinay madaxweyne waa ku soo dhaweynaynaa waxaana leenahay soo dhawow wixii jirana isla aragno waxna ka qaba arintaas waa mahadsantii